saldhigga cusub ee ciidanka booliiska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed iyadoo saldhiggani uu noqon doono midkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo degmadaasi maadaama aysan horay u lahayn talis booliis ah marka laga reebo xarun ay si kumeel gaar ah ugu shaqeyn jireen ciidamada nabadgelyada gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil iyo taliyaha qaybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Axmed Xasan Maalin ayaa ka mahadceliyay dhagax dhiga saldhigga cusub ee degmada meel baan ku sii shaqeynaynay hore degmada u deganeed oo ka soo guurtay oo aanu rabnayna mustaqbalka waaxda degmada waaxda abaadir ay noqoto haddana halkan waxaanu ka rabnaa inuu gudoomiyaha iyo jananka qaybta guud ay noo dhagax dhigeen waa saldhig taliya gudoomiye waxaan annaga ku deeqnay degmada ku deeqday waa dhul weyn aad baan ugu baahnayn inaan helno saldhig booliisku uu leeyahay waxay ku shaqeeyaan dhul shakhsiyaad leeyihiin marka si aan uga gudubno dhulka shakhsiyaad leeyahay maadaama maanta aad dhex nooga dhigtay aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhagax dhiga kadib warbaahinta u sheegay in laamaha amniga ay muhiim u yihiin nabadgelyada iyo horumarka deegaanka waxaan ognahay in saldhigu sideedaba uu yahay booliisku waa saaxiibka shacabka waa meesha dadku ay gaaraan oo warbixintoodana ay gaarsiiyaan haddii ay dacwo tahana ay gaarsiiyaan haddii gargaar tahana ay u raadsadaan hadafka aan leenahay ee fog wuxuu yahay in booliisku uu noqdo booliis shacabka matalaya haddii dhib dhaca uu gargaarayo maaha kaliya in dambi la galo uu gaaro laakiin dhibkaas sida sharciga uu qabo oo booliiskana uu ku shaqeeyo maadaama saaxiibka shacabka uu yahay inuu yahay gurmadaha koowaad ama gargaaraha koowaad ee shacabka maantana degmada Kaxda oo tusaale u ah degmooyin kale aan markasta ku celiyo waa degmada ayar laakiin baaxadda degmaha waa degmooyin waaweyn kamid ah aan tusaale wanaagsan noqon doonta degmooyin kale marka saldhigan ma ahan inuu kaliya noqon doono saldhig dambiyada iyo xiritaan kaliya ma laakiin saldhig xitaa oo noqdo ila dadka looga gargaaro oo ama hadday noqoto gurmadka degdeg oo waajib saaran oo booliiska qayb ka qaataan maadaama uu yahay saaxiibka shacabka marka sharaf bay noo tahay saldhigan dhagax dhignay waxaan ugu baaqayaa qof walba ganacsatada iyo dadka deegaanka iyo dhammaan qof walba oo qayb ka qaadanaysa annaga maamul gobolka Banaadir dawladda hoose iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iskaashanay inaan qaybtan ka wada qayb qaadano sidii degdeg loogu dhisi lahaa loona dhameystiri lahaa dhismaha saldhigga rasmiga ee degmada Kaxda waa markii ugu horeysay oo ay degmada Kaxda yeelato saldhig booliis ah inkastoo ay tahay degmada ugu daada yar ee gobolka Banaadir sidoo kalena ay ka mid tahay degmooyinka ugu baaxadda weyn ee gobolka Nuur Saciid Taaliil telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho